بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم تشيتشا يو أخيارتك كلا مقرن سامحا كل سود وهذا عبد حسن نصر الشيخ حسن سود وهذا محمد علي سود وهذا دمانتيبة سود وهذا ولا ريال سود وهذا قري وداني سود وهذا دمانتيبة. بسم الله وحوي وحنو حالكن كسو تشدين نافرين أما باق كوبان إن شاء الله بسم الله الكريم وكوة جهان وحوي ماملكا ومحاكرة كونفور قلبيد ستيت وحنو لانا هاي وحالكا ينوغو قران دفاعا وحوي محاكرة دالكا دينتا يدادكا وحوي محاكرة عبد الحكيم محمد قاري يارسو دو walaalayaal halkudhigyada halkaa aynu maxaan ku dhaha ku qoranno had iyo jeer barnaamijyadeena uu ah waxa weeye maxaan ku dhahday magaranaysa maxaan ku dhaha aad iyo aad baan ku salaamayaa wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaalayaal difaaca dalka diinta iyo dadku waxa weeye waxay ku fadhidaa waxa weeye shariifa soo dhawow shariifa cabdulle waxay ku fadhidaa walaalo in waxa weeye maxaan ku radaa kolley kelmadaha hoos kaga qoran waxa ay ku jirtaa oo lagu difaaci karaa dalka iyo waxa weeye maxaan ku radaa diinta iyo dadkaba waxa kamid ah waxa weeye isku duubnida waxa kamid ah dawladnimada waxa kamid ah isu tanaasulka waxa kamid ah waxa weeye walaalnimada waxa kamid ah jacaylka ummadda dhexmara waxaas oo dhan ayaa kamid ah. walaal baa yiri bal aniga igu bilow barnaamijka دو وهي كسو دو وكوسو دوين إن شاء الله إنك سان جعلين إنه برنامج كأكو دارادو سو دو وهي فرين كوبان بيهايد سو دو صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلسطين كسو دو فلسطين عافمات كورن وان فينا واندوها ما شاء الله وحاوي حقات شوكتا فلسطين. هالو فلسطين هالو عادي عاد بعض ما سنتي ولا العدكو ينقول ده إن شاء الله بسم الله الكريم ما يجنا كسر دو عادي عاد بقول سلام يا ما تفرين بينه وضنا طبعا وحوي الدفاع ضلك ضدك محاكرة الدفاع ضلك دينتا يضدك وحوي سليبا لقوا دفاع كرامات سلاضة هاي مركا هربل سؤاشاس عن كويدية وحنو ملان يا ولا شيء وملف فوق بيتشوكتا طبعا مقرنا يو ويرى مشغول ميا مساوي حوي وهوضع حن لبضع سميد ويه طبعا تلفونها سوق ليا ما قرنايو فلسطين ما مغشى فلسطين وان كحماي هذه يابان وحماي فلسطين وايو ما مغلي نعود كذا فلسطين ودني ويكقاضي هوضع كحن عاد وحماي ولاشن هوضع كحن walaalayaal waxa weeye waxaan nidhi waxa weeye difaaca dalka diinta iyo difaaci karaa waa midnimada dabcan waxaanu ku difaaci karaa waxa weeye maxaa ku raday dawladnimada dabcan waxaanu ku difaaci karaa waxa weeye maxaa ku raday jacaylka waxa weeye maxaa ku raday ummadda maxaa ku raday ilaahay subxaanahu wa tacaala uu walaaleeyay waxaan haddaba aanu maxaa ku raday baaqeenu ku wajahan yahay koonfur galbeed state oo hadda ay doorasho ka socoto oo xoogaa waxa weeye maxaa ku raday legdan siyaasadeed uu ka jiro ayaan waxaan leenahay waxa weeye maxaa ku raday walaalayaal waxa weeye haddaad doonaysaan inaynu jirno haddaad doonaysaan inaynu waxa weeye dadkeenna iyo diinteenna iyo dalkeennaba inaynu badbaadino waxaynu ku badbaadin karnaa isku duubni waxaynu ku badbaadin karnaa dowladnimo waxaynu ku badbaadin karnaa hogaamin wanaagsan waxaynu ku badbaadin karaa waxa weeye isu tanaasul waxaynu ku badbaadin karaa isu sabir waxaynu ku badbaadin karaa dadaal iyo duco. marka sidaa darteed waxaan leeyahay walaalayaal waxaan aad iyo aad aan u jeclaysanayaa oo aan ilaa xalay ay dadka waxa weeye social mediaha isticmaala ay daawanayeen doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka oo lagu tartamayay waxa weeye maxaan ku dhahday ma garanaysaa maxaan ku dhahday labada xisbi
xisbiga talada haya iyo xisbiga waxa weeye maxaa kula dimuqraadigu ay ku legdamayeen xisbi walbaana uu doonayay in uu waxa weeye maxaan ku idhahdaay isagu guusha hanto dabcan waa arrin dabiiciya oo waxa weeye haddii maaragtay maxaa kula siyaasadda lagu kala duwan yahay in siyaasadda loo tartama waa wax saxa weeye sababta aan u leeyahay ereyada aan usoo qoray kooban ee ah waxa weeye maxaa kula diinta iyo dalka waxa lagu difaaci karaa waxa weeye waa dowladnimada iyo isku duubnida waxa weeye waxaynu maqlaynay walaalayaal guux oranayay waxa weeye maxaan ku dhahdaa koonfur galbeed doorashadeeda waxa faragelinaysa waxa weeye maxaan ku dhahdaay dowladda federaalka haddaba dowladda federaalku xaq ma u leedahay inay waxa weeye ma garanaysaa ay dad u soo dirsato ay iyadu waxa weeye maxaan ku dhahdaa ku kalsoon tahay xaq ma u leedahay oo doorashada u matala oo reer koonfur galbeeda kuwa maaha meelo kale ka yimi kuwa cirka laga soo tuuray maaha laakiin waa kuwa reer koonfur galbeeda oo iyagu doonaya ku qanacsan sida ay u shaqaynayso dowladda federaalka soomaaliyeed haddii ay yimaadaan dee xor bay u yihiin waxa weye dabcan dowladduna haddii ay waxa weye taageerto iyana xor bay u tahay sida waxa weye qof waliba waxa uu rabo uu u taageerayo waxaan leenahay marka waxay la mid tahay taasi Donald Trump oo ah waxa weeye xisbiga talada haysta isagu madaxweyne ka ah waddanka oo doonayay in uu waxa weeye maxaa ku dhahday saydareeyo dhammaan waxa weeye maxaa ku dhahday codadkii la dhiibanayay xalay waxa weeye maxaan ku dhahday Mareykanka si uu guusha u sii adkaysto iyo dimuqraadiga oo doonayay inay waxa weeye maxaan ku dhahday iska sii magaranaysaa maxaa ku iska difaacaan oo ay wax soo dhacsadaan oo bal maxaa xitaa waxa weeye maxaa ku dhahday golayaasha qaar iyo gobornatorayaasha isteediyada in ay meelo badan ay ku xoogaystaan iyana doonayay loolankaas ayaa socday marka loolankaas waxaynu oran karaa waa sax buu ahaa mise loolankaas waxaynu oran karaa qalad buu ahaa dabcan aniga aragtidayda wuxuu ahaa loolan saxa oo cilmi iyo xigmad ku dhisan waxa weeye waxaynu kala arkaynay dad Soomaaliyeed oo qaxooti ah oo shalay waxa weeye 20 sano ama dhowr iyo 10 sano ama maxaa ku dhahday wax la mid ah ku noolaa waddanka Mareykanka in ay waxa weeye maxaan ku dhahdaa ay u gudbaan xalay oo loo doortay waxa weeye maxaan ku dhahdaa golayaasha sarsare ee Mareykanka iyo golayaasha hoose ee gobolada labadaba haddii marka walaalayaal ay waxa weeye maxaan ku dhahdaa Trump ay shaqo ay magaranaysaa ay maartay uu magaranaysaa shacabka Mareykanku ay raaci lahaayeen oo afkaartiisa ay qaadan lahaayeen dabcan waxa weeye shakhsiyaadkii qiimaha badnaa ee xalay doorashada ku guuleystay ee Soomaaliyeed iyo kuwii kale ee jinsiyadaha kale kasoo kala jeedayba ma ay guuleysteen dabcan isaga aragtidiisa laakiin waxaa jiray aragti kale oo dhinac socotay oo oranaysay dalka waa loo siman yahay dalka waa la wada leeyahay dalka waa la wada degan yahay marka waxaan ka rabnaa reer koonfur galbeed aragti xor ah oo ballaaran oo ay magaranaysaa maxaa ku dhahday qeexaysa in koonfur galbeed ay ka tirsan tahay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dadka waxa weeye maxaa ku dhahday koonfur galbeed dowladda federaalka ugu jira iyo madaxdeeda sarsare halka ku jira ama kuwa xisbiyada ku jira ama kuwa golaha baarlamaanka ku jira ama kuwa wasiirada they have the right inay xaq u leeyihiin in ay iyagu magaranaysaa koonfur galbeed isu soo sharaxaan inay waxa weeye dowladdu taageertana inay xaq u leedahay oo aanay ahayn wax magaranaysaa maxaa ku dhahday mufaaji'a oo la yaaba taas waxa weeye taasaan ka leeyahay dabcan dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna dambaa ugu jirta sababtu tahay dalku inuu yeesho siyaasad midaysan waxa weeye maxaa ku dhahday dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ugu jirta dambaa ugu jirta waxay dantu ugu jirtaa waxa weeye maxaa ku dhahday koonfur galbeed bay dantu ugu jirtaa in dowladda Soomaaliyeed ay yeelato maamul midaysan oo waxa weeye hal wado wada qaada iyo nidaam isla shaqaynaya waxay ugu jirtaa koonfur galbeed waxay ugu jirtaa waxa weeye maxaa ku dhahday ubadka mustaqbalka imanaya waxay ugu jirtaa cid kasta oo waxa weeye maxaa ku dhahday dalkan Soomaaliyeed waxa weeye maxaa ku dhahday ka tirsan wadafa meeshay doonaan ha waxay ugu jirtaa doorashada ka socota waxa weeye maxaa ku dhahday koonfur galbeed oo lagu heshiyo oo dowladda federaalka iyo maxaa ku dhahday koonfur galbeed ay isku afkartaan waxa weeye madax waxa weeye maxaa ku dhahday isla ogol yahay in ay ka soo baxdo waxay doon ugu jirtaa Jubbaland waxa reer Jubbaland waxay ugu jirtaa reer Hirshabeelle waxay ugu jirtaa dantu waxa weeye reer magaranaysaa maxaa ku dhahday Galmudug waxay dantu ugu jirtaa shacabka waxaan ka hadlayaa shucuubta kama hadlayo shakhsiyaad iyagu dana gaara leh oo iyagu doonaya inay xukunka sii haystaan oo iyagu doonaya inay ummadda waxa weeye maxaa ku dhahday ay magaranaysaa magacooda keliya ay dhaafsadaan oo inay madax noqdaan wax kastaba magaranaysaa maxaa ku bixinaya iyagoon ummadda wax u tarayn marka waxaan leeyahay
salaadiinta waxa weeye maxaan ku dhaha salaadiinta reer koonfur galbeed iyo waxa weeye guddiga doorashada intii ka hadhay reer koonfur galbeed iyo golaha baarlamaanka ee reer koonfur galbeed waxaan leenahay waxa weeye waxa indhihiinu ha arkeen waxa weeye laba shay kow dad muslimiina baa tihiin magaranaysaa koonfur galbeed waxa weeye waa meelihii loo soo doonan jiray waxa weeye maxaa ku dhahdaa diinta oo waxa weeye laga baran jiray waxa weeye dadku ay magaranaysaa meelo fogfog uga iman jireen dabcan diintuna iyo qur'aanka iyo sunnaduna waxay isxambaarsan yihiin waxa weeye maxaa ku dhaha akhlaaq iyo asluub iyo dhaqan aad iyo aad iyo aad u sarreeya waxaan u baahannahay oo ay ummadda soomaaliyeed idinka sugaysaa reer koonfur galbeedow salaadiinta reer koonfur galbeedow waxa weeye guddiga doorashooyinka reer koonfur galbeedow waxa weeye golaha baarlamaanka reer koonfur galbeedow waxay ummadda soomaaliyeed idinka sugaysaa dhaqan wanaagsan oo qanciya waxa weeye shacabkiina iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo waxa weeye u magaranaysa khidmaynaya dowladnimada iyo maxaan ku dhahdaa wadaniyadda iyo maxaa ku dhahdaa ilaalinta waxa weeye sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed taa ayaa laydinka fadhiyaa dhammaantiinba waxaa kaloo laydinka fadhiyaa walaalayaal waxa ka dhacaya caalamka waxa weeye maxaa ku dhahda sida qaab maraykanka oo xalay aynu magaranaysaa doorashada ay ka dhaca aynu ka soo sheekaynay waxa ka dhacaya inaynu iyadana aad waxa weeye wax ku qaadataan runtii dad shalay ka tegay guryaha laga yaabo qaarkood inay ka tageen deegaanka aad ka soo jeedaan dadka waxa weeye maxaa ku dhahdaa doorashooyinka ka qayb galayay dabcan iyo maxaa ku dhahdaa dad Soomaaliyeed bay ahaayeen waxay ka yimaadeen daafaha caalamka waxay joogeen muddo kooban waxay ka garanaysaa maxaa ku dhahdaa waad aragteen waxa weeye maxaa ku dhahdaa heerarka ay ka gaadheen iyo maxaa ku dhahdaa magaranaysaa maxaa ku dhahdaa waxyaabaha ay ku guulaysteen dabcan waxaynu leenahay dalka Soomaaliyeed waxa weeye dadka Soomaaliyeed baa leh dabcan waxa weeye maxaa ku dhahdaa iyadoo deegaamadu ay haddana waxa weeye maxaa ku dhahdaa la kala degan yahay haddana dalka Soomaaliyeed waa dal Soomaaliyeed dhammaan ummadda Soomaaliyeed baa leh waxaan aad iyo aad aan uga codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dalka waxa weeye maxaa ku dhahdaa Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ah ee hadda ay ugu horeyso koonfur galbeed waxa weeye Soomaaliya in ay ummadda Soomaaliyeed u horseedo horumar iyo barwaaqo iyo baraare iyo maxaan ku dhahdaa xasilooni iyo wada shaqayn walaalayaal waxaynu ognahay oo aan idin xusuusinayaa magaalada Baydhabo la yiraahdo afarteeda koone waxa ku nool dad masaakiina dad waxa weeye maxaa ku dhahdaa gaajo aan hoy lahayn dad aan waxa weeye maxaa ku dhahdaa xanuunsanayo cudurro ay la degeen dad waxa weeye aan nabadgelyo haysan dad waxa weeye gaajo iyo silic ku nool dad waxa weeye dhibaatooyinka wax allaale waxa dhibaato jirta ay la soo diristay dadkaas waxay u baahan yihiin hiil bay idinka baahan yihiin waxaan filayaa inaan shariif waxa weeye hiil idinka baahnayn sababtu tahay waa nin taajira waa nin maalqabeena waa nin muddo badan siyaasadda ku soo jiray waa nin wixii uu qaban lahaa soo qabtay waa nin ay ummadda Soomaaliyeed taqaano laakiin waxa hiilka idinka baahani waxa weeye waa dadka shacabka ah ee waxa weeye masaakiinta ah ee dulman ee 30 sano ama magaranaysaa inta ka badanba dulmana ee marba dhinac loo jiidayay ee waxa weeye maxaa ku dhahdaa aadka magaranaysaa maxaa ku dhahdaa u dhibaataysan dadka ayaa hiil idinka baahan waxa hiil idinka baahan ubadka Soomaaliyeed waxa odayaasha waxa weeye magaranaysaa qaybaha kala duwan ee bulshadu waxa idinka baahan ubadkiina idinka baahan hiil waxa idinka baahan ubadkooda hiil idinka baahan waxa idinka baahan ummadda Soomaaliyeed ayaa hiil idinka baahan walaalayaal waxaan aad iyo aad aan mar kale ku celinayaa oo aan rajaynayaa inay doorashadaasi ay u dhacdo sidii waxa weeye loogu talagalay waqtigii loogu talagalayna ay dhacdo aadna guntiga aad dhiisha iskaga dhigtaan inay ka soo baxaan wax idinka idin anfaca waxa idinka idin anfacaya ayaa Soomaali anfacaya haddaad idinku sidii aad magaranaysaa maxaa ku dhahdaa barnaamijkeena xalayba aan kaga waranay aad doorataan madax wanaagsan oo idinka idin khidmaysa waxa weeye waxa doorateen madax Soomaali u khidmaysa haddaad idinku doorataan shakhsiyaad danaystayaala oo iyagu waxa weeye maxaa ku dhahdaa aan tooda mooyaane cidna u arxamaynin waxa weeye waxaad halaagteen idinka ubadkiini baad halaagteen dadkiini baad halaagteen ummadda Soomaaliyeedna waad halaagteen waxaan idin leeyahay marka walaalayaal waxa weeye indhihiina fura waxa weeye maxaa ku dhahdaa waxa weeye maxaa ku dhahdaa aad iyo aad waxa weeye maxaa ku dhahdaa aqligeena uga shaqaysiya deegaanka iyo dalkaba waxa weeye u magaranaysaa u heeliya deegaanka iyo dalkaba u heeliya waxa weeye maxaa ku dhahdaa guudaha dadkiina iyo dadka Soomaaliyeedba u heeliya diinta islaamka u heeliya dhaqanka wanaagsan u heeliya waxa weeye maxaa ku dhahdaa waxaan idin leeyahay doorashadaas insha Allah bismillaahi kariim
in ay suurto gasho waqtigii loogu talagalay waxa weeye oo aanay waxa weeye waqti dheer aanay dib u dhicin oo ama ma garanaysaa maxaan ku dhahday ayna aadna soo saartaan dadka idinku wanaagsan ee idinku waxa weeye naxariista badan ee idinku waxa weeye maxaa ku dhahay cadaaladda badan ee idinku allah kacabsiga badan inaad soo saartaan telefoon baa soo waxaad idinku doorataan waxaan ku soo gabagabanayaa hadalkayga waxaad idinku doorataan waa waxaad u doorteen ummadda Soomaaliyeed waxaad ummadda Soomaaliyeed u doortaana waa wax ma garanaysaa idinku aad doorateen waa waxa weeye mustaqbalka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed saameyn ku yeelanaya marka waxaan idinka codsanayaa inaad inoo doortaan shakhsiyaad wanaagsan oo waxa weeye maxaan ku dhahday dalka iyo dadka iyo diintaba u adeega waxa weeye idinkana idin adeega aad iyo aad baan idin wada salaamayaa maan soo gelin inaan aad iyo aad ugu dheeraado laakiin waxaan jeclaystay in aan dabcan waxa weeye maxaan ku dhahdaa aynu dalkeena difaaca dalka aynu ka wada qayb qaadano qof kastaana uu kaalintiisa ka qaato dabcan waxaan awoodaa inaan hadlo wax kale oo aan maanta u awoodaa maxaan ku dhahdaa dalkayga ma jiro hadalkaas waxa weeye maxaan ku dhahdaa wuxuu iga yahay hiil inaan u hiiliyo dadkayga inaan u hiiliyo diintayda inaan u hiiliyo dadkayga dabcan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaan ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda idin waafajiyo dhammaanna ummadda Soomaaliyeed tawfiiqda uu ilaahay waafajiyo inuu ilaahay subxaana watacaala ummada in badan baa waxa weeye maxaan ku dhahdaa aynu wareersanayn in badan baynu waxa weeye maxaan ku dhahdaa aynu meel cidla ah aynu waxa weeye garaacaynay waxaan ilaahay ka rajaynaya oon ka baryayaa inuu kuwa inoogu wanaagsan xukunka inoogu dhiibo kuwa inoo naxaya oo ilaahay ka baqaya oo waxa weeye maxaan ku dhahdaa ay garanaya in ay waxa weeye maxaan ku dhahdaa iyaga dantooda garanaya iyaga dantoodu inay ku jirto kuwa garanaya inay dantoodu ku jirto waxa weeye waxa dadka Soomaaliyeed waxa ilmaha yar ee dhashay dantiisu ay tahay waayo waxa weeye dhammaanteenba waxa weeye waxaynu u soconaa hal dariiq baynu ku soconaa dariiqaynu ku soconaana waxa weeye waa malaa'igyaana dushaana saaran wax kastoo aynu maxaan ku dhahdaa samayno waxa weeye waa wax aynu magaranaysaa dhaxal inaga inoo yaala waxa wanaagsan aynu samaynaana waa dhaxal inoo yaala waxa xun ee aynu samaynaana waa dhaxal inoo yaala sidaa darteed qofka siyaasiga ahi waxa uu samaynayo waxa weeye waana wax uu magaranaysaa isagu naftiisa ama uu ku horumarinayo ama uu dib ugu dhigayo oo naftiisa uu maxaa ku dhahdaa kullu goynayo dabcan dadka Soomaaliyeedna waxa weeye labadaas ayaa saameyn ku yeelanaya hadduu naftiisa horumariyo oo ilaahay uga boqo oo dadka waxa weeye xuquuqdooda uu siiyana waxa weeye maxaa ku dhahdaa naftiisiibuu hagaajiyey hadduu dadka halaagana naftiisiibuu halaagay marka ilaahay subxaanahu watacaala kuwa aan iyagu ishalaagin inagana ina halaagin ilaahay subxaanahu watacaala ha inoo soo saaro waxaan intaa ku darayaa oo aan ummadda Soomaaliyeed ku celin marka hore ku celinaya aan xusuusanaya mar labaad ee salaadiinta waxa weeye maxaa ku dhahdaa koonfur galbeed guddiga doorashooyinka intii ka hadhay baarlamaanka waxa weeye maxaa ku dhahdaa koonfur galbeed hawl baa idiin taalla ummadda Soomaaliyeedna way idin eegaysaa waxaana rajaynayaa wax farax geliya ummadda Soomaaliyeed inaad u keentaan baan ilaahay ka rajaynaynaa oo aad idinkuna waxa weeye maxaa ku dhahdaa aakhirana aad ku badbaadaan adduunkana aad magac ku heshaan taa ayaan idinka rajaynaynaa ta kale waxaan ma garanaysaa fariinta kale aan gudbinayaa waxa weeye dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan rag iyo dumar waayeel iyo maxaa ku dhahdaa dhalinyaro waxgarad wax culimo iyo maxaa ku dhahdaa salaadiin waxgaradka qaybihiisa kala duwan dhammaan dalkan idinkaa leh dalkan siyaasi ma laha dalkan waxa weeye maxaa ku dhahdaa farmaajo ma leh dalkan khayrre ma leh dalkan shariif maxaa ku dhahdaa xasan ma leh dalkan axmed madoobe ma leh dalkan gaas ma leh dalkan xeef ma leh dalkan awaare ma leh dalkan shacab yahow adigaa leh dalkan shacab yahow adigaa leh waxa weeye shacab yahow dalkaaga waa inaad difaacataa waa inaad akhlaaqdaada iyo diintaada difaacataa waa inaad dadkaaga u hiilisaa oo dulmiga aad ka saartaa waxa baabiyey dalkeenna innagaa gacmaheenna isku halaagnay waxa weeye maxaa ku dhahdaa oo waxa weeye maxaa ku dhahdaa waxaynu raacnay aynu u dhiibanay hoggaanka waxa weeye maxaa ku dhahdaa ninkii la odhan jiray ummadda ha laga qabto ee xabsiyada loogu talagalay ayaynu waxa weeye hoggaan ka dhiganay kuwii waxa weeye loogu talagalay dadka inaynu hoggaamiyana qaarna waynu dilay qaarna dabcan waynu masaafurinay qaarna waxa weeye waxaa laga yaabaa xabsiyadaba inay ku jiraan marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed fadhiga ka kaca waa inaynu gaadhno heerka ay bini aadanku ay gaadheen Mareykanka United States waxa weeye sida uu wax u qaybsanayo si lamida waa inaynu gaadhno oo aynu ku qaybsano waliba inaga asal u ah inaga ehel u ah waayo dad muslimiin baynu nahay doorasho tii ugu horeysay
caalamka ka dhacda waxay dhex martay waxa ay magaranaysaa maxaa ku dhahda ka dhacday waxa weeye maxaa ku dhahda asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu rasuulku dhintay sallallahu alayhi wasallam waa la doortay abubakar balada u fiirso waxa weeye maxaa ku dhahda cumar waa la doortay cuthmaan waa la doortay cali waa la doortay walaal doorashada waxa weeye maxaa ku dhahda iyo cidda ehelka waa in loo dhiibo islaamkay ka timid waxa weeye allahayna garansiiyo aad iyo aad baan idin wada salaamayaa wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam